sheekh saailkani wuxuu leeyahay waxaan ahay nin dhalinyaro ah gabadh baanu isbaranay muddaanu sheekaysanaynay gabadhii reerkooda ayaan ka doonay aragti kadib waanu maaragtay isku qanacnay reerkooda ayaan ka doonay waa la isiiyey gabadhii markii ay xaaskayga noqotay ugu horreysay kulankii ugu horreeyey waxaa meeshii ka soo baxday waxayan horey iigu sheegin shuruudaydii horena waxay ahayd qofba qofka kale wuxuu jecel yahay iyo waxa uu yahayba inuu maaragtay daacad ka ahaado gabadhii waxay ka mid noqotay dadka iscaddeeya ee kalarkiisii iska bedelay arrintaana way ii qarisay iimaanay sheegin aniguna sidaydaba qofba dooq buu leeyahay dadka noocaasa cuqdad baan ka qabayba sidaydaba tii baana hadda igu jirta waxaan door biday marka oo aan go-aansaday inaan gabadhii waraaqdeeda siiyo gabadhana qaraabo ayaanu meel ka nahay maxaan sameeyaa arrintayda murug iyo maaragtay go-aan ka aan qaatay maxaa ka dhalan karaa maxaan sameeyaa miyaan gardarahay oo ku gafay haddii aan waraaqdeedii gabadha siiyo falyatafadal وشكرا ومأجورا شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ninka dhalinyarada ah waxaan kula talinayaa inuu reerkiisa haysto gabadhana uusan warqadeeda siinin si kastaba ha noqoto oo gabadhu midab aynan lahayn ninka kolka hore iskugu soo bandhigto hana ku guursado midab kalena iyo kalar kalena ha la soo baxdo kadib markay waxyaalihii daawadii ay baxday kolba gabadhu gabar Soomaaliyeed kama madoobaan doonto soo saas ma aha waxaan ninka rabaa inaan ku qanciyo gabadhu kaba soo qaad inay aad isu cadaysay oo carab isu ekaysiisay mesela wixii markay baabeen soo akhiiran uu gabar Soomaaliyeed kuma soo bixin oo midabka Soomaalida ale waxaan ku cadaynayaa oo raba qalbigaaga inaan waliba aad ugu dajiyo gabdhaha Soomaaliyeed kalarku alla siiyay waa kalarka ugu qurux badan adduunka way aniga Abu Talha qanaacadayda waan ka hadlayaa inaad igu raaci doontana waan rajaynayaa dadka Afrikaanka iyo Carabta iyo markaanu sheekaysanayno waxay dhahaan midabka Soomaalidu waa cajiib maxaa yeelay waa midab aan caddaan ahayn waa midab aan madow lafta ku jiran aan ahayn qofka Soomaaliga ah midabkiisu waa midab dhaxdhaxaad oo kalarka adduunka ugu qurux badan way taadaradeed waxaan ku leeyahay ka raali noqo aniga Abu Talha ka raali gelinaya gabadha hada tiri qaraabanahay ani lafteeda qaraabanahay Soomaali maadaama qaraabanahay haddaan si wareysana qaraabo roo noqon waa iska suurtagal marka sabeen baa kugu xiran way dhacday oo gabadha way ku jeclayd inay ku soo jiidato bay aad u rabtay hadda wayna ku soo jiidatay daawadii markay ka baxdayna kalar Soomaali baa soo noqday gabadhana waxaan leeyahay ninkaaga ictiraaf u samee oo waxaad dhada walaalo waan ku jeclaa inaan ku helo ayaan rabay adiguna naag cad inaad gabadh cad inaad rabto waan iska qiyaasayay hadda saan ku heli lahaa baan ku isku cadeeyay khiyaanana way igu ahayde mar haddii aad gabadha inta kale nolosheeda aad ku qanacsan tahay oo gabadhii aadan wax kale ka sheeganaynin oo dabeecad aadan ka sheeganaynin oo aadan diin ka sheeganaynin oo aadan wax kale ka sheeganaynin oo ay tahay way soo cadaysay intaana guursanin kadibna midab kala ku soo baxay ka raali noqo insha Allah waa lagu jeclaayo in lagu soo xirgeliyaa la rabay haddana midabka ugu qurux badnaaba ku soo haray sabeen baa kugu xiran gabadha naga furin waan ku jecelahay anaga dhanba inta qolka ku jirtana way ku jecel yihiin reer wanaagsan baa tiina insha Allah ta'ala gabadhayna adigana furayaasha isticmaal oo ninkaaga ictiraaf oo maxaa ninkaaga soo dhaweey biin Allah tabaaraka wa ta'ala usra saciida ina noqotaan baan ilaahay idin ka bari wallahu a'lam.